naftiisa qofkaan xishmayn naftiisa qofkaan xishmayn damiirkiisuna xishoon ayaa aadmiga xagtoo xumaantoodan wadwada haddaad aragtaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعني هراء ayaynu waliina ku sii dhex jirnaa. markii hore waxay noo joogtay noocyada ay Soomaalidu isku guursadaan. noocyadaasi way kala mudnaayeen ama way kala mug weynaayeen. sidaa darteed gabadhii guri soo gashaahi 10 nooc mid ka mid ah ayay u soo gali jirtay. number 1 heerin. heerin waxa la yiraahdaa gabadhu markii hore loo guursan waayo da'dooduna yara weynaato inta ay dhowr isku raacaan ayay deegaano kala tagi jireen kadibna reero ayay u gali jireen. sidaa darteed ayaa lagu guursan jiray. waa 10 nooc mid ka mid ah. qodobka labaad waxa uu ahaa sahanshasho. gabadhu markii ay wiil ay ka hesho waxay ogaan jirtay reerka uu ka yimi dabadeedna gurigiisii ayay gali jirtay. sidaa darteed ayaa lagu guursan jiray. waa qodobka labaad ama nooc ka mid ah noocyada ay dumarka lagu guursan jiray. labana geeri ayaa keenta. waa dumaasha iyo xigsiinta. waa sidaan hore u soo sheegay. dumaasha waxa la yiraahdaa haweeneyda marka uu odaygeedu dhinto ama saygeedu dhinto ayaa haddana waxa la siin jiray inanta inanka ka dhintay walaalkii ama qofka dadka u xiga. xigsiintuna waxa weeye ninka marka ay ka dhimato xaaskiisu ama gabadhiisu marka ay ka dhimato ayaa la siin jiray gabadha walaasheed. labana waa boob ama dhac qarsoon. number 1 sida la baxsashadoo kale. wiil ayaa gabar la baxsanaya reerkooda aan ogeyn. wiilka ayaa gabadha reerkoodii ka wadanaya marka uu qoyskiisii geeyana ayaa waxa la wargelinayaa gabadha reerka ay ka dhalatay. waa 3. qodobka afraad waxa weeye dhabar garaac. gabadha oo dhan la socota ayaa ninka iyo saaxiibadii kala harayaan kadibna xoog ayay gurigiisa ku geynayaan. labana waa guur toosa. xasaawe iyo isasiin. inanka iyo gabadha ayaa xasaawe dhex maraya kadibna way heshiinayaan dabadeedna waa la isku dhisayaa. midaas waa xasaawo toosa. isasiintuna waxa weeye labada reer ayaa isasiinaya wiilka iyo gabadha iyagoo aan is ogeyn labadii shakhsiyo la isisiiyay. labana waa bogsiin. waa la iskugu boogaydhaya godob reeb iyo ku qaado. godob reebta waxa la yiraahdaa reeraha colku ka dhaxeeyo ama reeraha dagaalku soo dhex maray waxa kala dila reerahaas oo colaada soo dhex kala geliyay colaado hore u soo jiray kadib waxa la iskugu boogadhayaa labadii reerood gabar ayaa la isasiinaya si colaada loo damiyo. waxa kaloo jirta labada bogsiinta ahi ku qaado shay la yiraahdo. waa qodobka 6. wiilku markuu gabadha quruxdeeda wax u geysto ayaa waxa la oranayaa ku qaado. marka 10 nooc sidaas ayuu ku dhan yahay. qodobada marka aynu ka fahmayno mawduuca kani ayaa waxa uu yahay Soomaalidii hore dhaqan iyo xeer ayaa u deganaa. haddaba la isku raaci jiray markii hore. gabdhahana 10 nooc ayaa loo guursan jiray. marka maasha Allah kolba dhaqankeena hore aad ayuu wanaagsan yahay balse dadkan dambe ayaa jah wareeriyay oo dhaqamadeena hore markaynu noocyadii faraha badnaa dumarku ay guryaha ku soo gali jireen loo eego ilaa qodob ama 2 mooye intooda badani oo wax wanaagsan. qodobka iyo 2daasna waxa wanaagsan in si macquul ah loo eego. marka waxaan ugu hambaleynayaa dhammaan asxaabtayda qaaliga intii hore iyo inta dambe nagu cusub 14 February oo ay ka dhiman tahay 4 casho. hambali ayaan leeyahay dhammaan maalinta xuska jacaylka adduunka ama dunida. iyadoo dadka qaar ay si qaldan u fahansan yihiin balse muhiimadu ayaa waxay tahay maxay diinteenu ka qabtaa. mawduucaasna waxaan jeclahay inaan mar ku yara nuxnuxsado.
aad baan salaamay dhammaan asxaabta haddaad aragtaan xinlow xajiin noolaha marsho ceebaha xaashiya ku qora xaqiiqdii wuu buka